بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaan yeelo. Cidii dhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah oo fiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa saddex qodob. shirkii madasha wada tashiga qaran oo baaqday. qodobka labaad, dhulkii dabdamiska oo aan hadda ka hor ka hadlay iyo update ku saabsanna kelmad baan ka oranayaa. qodobka saddexaad, G7 oo iyaguna ka hadlay ama gobolada wadamada horumaray oo ka hadlay khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliyana kelmad baan ka oranaya. waa marka koowaade Xasan Sheekh Maxamuud baa wuxuu ku dhawaaqay inuu shirkii NCC qabanayo. shirkaas uu hadda ka hor diiday inuu qabto oo ay ka dalbadeen maamul goboleedyadu, ayay waxay kaga jawaabeen iyaguna inay diideen oo aysan imaanayn. arrintaas markay dhacday, warqadaas soo saaray madaxweynuhu. daraad waxaan idiin sheegay madaxweynuhu inuusan haysan political alliance, cid taageera inuusan ka haysan maamul goboleedyadii oo dhan. isla markaasna shirkaas uu qaban doonaa inuusan dhacayn ayaan idiin sii sheegay. waa taa jawaabteedii. waxaa dib loo dhigay muddo aan la garanayn oo ay ku cayimeen inay tahay muddo kooban, laakiin aan la sheegin gooray tahay. waxaanu xaqiijinay horta Puntland inaysan imaanayn. khaatumo iyagaa ka reebay oo iyagaa inkaarta isku riday oo almino kuwaasna u imaan lahaayeen, iyaguna kuma jiraan. Jubbalandna waxaa la caddeeyey inaysan imaanayn. saddexdaas inay ka maqnaanayaan. Somalilandna awal bayba maqnayd. marka qoorqoor iyo guudlaawe iyo lafta gareen keliya baa u soo haray. haddayba imaanayaan iyaga laftigoodana la sheegayo inaysan raalli ka ahayn inay yimaadaan. madaxweynuhu wuxuu rabay maamul goboleedyada inuu ku laaluusho. laba sanaan idinku darayaa. 2026 baa doorasho qof iyo coday dhacaysaa. isku mar baana la wada qabanayaa. inta la gaarayana aan wada joogno. laakiin qadiyadda waxaa ka horeeya, war wixii aan ku heshiinay oo hore haddaa ka baxday, hadda annagu kumaba aamini karno. ninkii siyaasaddii nin lagu aamini kara maaha. waa qodob. qodobka labaad, doorashada aad sheegaysid meelaha aa leedahay ka wada dhacdo maba ka talisid adigu, cidina kaa amar qaadan mayso. waxaa kuu dheero saddexaad, doorashada dadka qabanaya, maadaama guddigii doorashooyinka aad kala dirtay oo aad adigu waagi hore magacowday, maadaama aad guddiyadii oo dhan madaxa bannaanaa kala tuurtay, aadna tiri anaa 18 qof keensanaya, anaa banooniga kula ciyaaraya, arbitarahana anaa kuu ah, cid kaa yeelaysaa ma jirta, ina ku kala kaxee. sheekadu halkaasay u dhacday. teendhadii la fursan maayo. teendhadii oo markaan xasan oo xoog loo sii bartay uu ka tartamayo la fursan maayo. insha allahu waa arki doonaa wixii ka yimaada. qadiyadaas halkaasay martay. madoobe wuxuu ka carooday, sida la sheegay, ninkii odaga ahaa oo ahaa Xamse ayaa wuxuu u sharaxan yahay Jubbaland. Jubbaland madoobe isagaa isa siiyey. aabihiis inuu ka dhaxlay bay la mid tahay. mayd baan la soo galay mana ka baxay uu yiri. 4 madaxweyne oo kanu ku jiro ayuu ka takhalusay oo iyagoo soo taagan uu isagu ka haray. haddana inuu isku caana shubo ayuu rabaa dhowaan. maadaama aan Jubbaland ka hadlayo, waxaan rabaa inaan kelmad ka iraahdo. dhulkii baa la boobaya. reer Jubbaland waxaa u soo dhacday boob dhulkoodii lagu hayo oo aad u tiro badan. waxaan la yaabay mid dhul baa waxaa dhacay nin la yiraahdo Axmed Maxamed Cabbaas oo maalin guur ogaadeen maalin guura, iyo nin la yiraahdo Cabdirashiid Shaqalle oo isna reer Isaaqa. dhul bay waxay ka dhaceen nin Marixaana. dhulkii bay waxay ka dhiseen masaajid. masaajid bay ka dhiseen. waxay u bixiyeen Imaam Shaafici. wuxuu ka soo horjeedaa meesha dalxiiska. maxkamadda sare waxaa jooga Cabdishakuur Maxamed Rashiid oo ugaas nuura. maxkamadda degmada oo dhulalka qaabilsanna Muuse Cismaan Geedi oo awliyahana jooga reer Afgaaba. waxay heshiis kula yihiin dhulkaa la soo boobo inay sharciyeeyaan.
dhulkan hadda ka hor baan ka hadlay ninkaas intuu dacwooday baa maxkamadda u xukuntay maxkamaddii u xukuntay yaa mashaahid laga dhisay markuu u taga waxay leeyihin dee kuu xukunaya adigu ka doono iyaguna heshiis bay ku leeyihiin axmed madoobe waa kaas dadka hantidoodii ayuu wuxuu ku fasaxay maamulkiisa iyo ciidankiisa annagu kuwa aan lahayn oo beera ahaa kuwaa boobay ciddooda ah waa boob iyo dhac cidna u joojin maayo marka ninkaasi ka baxiyey mana rabo inuu cidna kala tashado maamulkiisa xamse ama soo dhis xamse oo shaqadii yartahayd oo caatada ahayd oo ra-iisul wasaarahayd ku filnaan waayey baan jubbaland ku dhisayaa xoog kaga qaaday axmed madoobe xasan waa iska riye khuraafaada lamana rabin xilligan xilligeedii maaha marka xasan isagaa istoogta oo weligiis lugta iska toogta qodobka labaad dhulkii hantidii qaranka baa waxaa loo boobayaa maxaa kaa galay hadda ka hor 14 dhul baan sheegay in badan oo ka midii tage bangaariyadii tagtay warshadii caanaha cabdinaasir cali adoon iyo faysal baa wada qaatay ganacsataa dhulkii dowladda inta la qaato oo madaxweynuhu xaraasho buu markaa wuxuu siinayaa ganacsato ka xaraashaya marka waa hanti qaran oo loo bedelay qabyo ninkeeda dhammaystira xildhibaankii ninkaa keenay ha ogaado ama cimro aad ama xaj aad ama quraan akhri ama masaajid hadba isku soo sawir ilaahay subxaana wa tacaala wax alla wixii ninkaasu ba'sado adaa ka mas-uula dowladnimo maadan eegayn waxaan arkayaa dadkii oo buuqaya oo qaylinaya waxaan arkay nin leh farmaajo xaal qaado waa kaa gardarnay nin goba oo xishoonaya oo qable oo madaxweyne istaahila baanu inta xilkii ka qaadnay baanu nin dilaal ah oo xaraash qaran ah oo dhulkii xaraashaya oo boobaya baanu keennay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiir ilaahay dadka ma dulmiyo wax alla wixii musiibo idinku dhacay idinkaa kasbaday baa leeyihi weliba qaar baanu idinka daynaya wayacfu can kasiir in badan baanu idinka cafinay oo aan laydinku qaadin eedeedii idinkaa kasbaday oo keensaday xasan shalay waa kuwii badbaado qaran iyo la baxay oo guryaha qodanayay indhacaddaa wuxuu leeyahay lama weerari karo indhacadda dowladnimada isagaa shalay dumiyey maanta marka in loo dowladeeyo waa mudan yahay kuwii shalay ciidda dhiganayo ciid turada samaysana marinaayo iyo kusoo jiray waa iyagii waxaa hadda qaylinaya marka xasan wuu idiin sheegay qabyo ninkeeda dhammaystira hantidii qaranka xeradii bangalo waa la qaatay bangaariyadii waa la qaatay Somali Airline waa la qaatay ganacsatada waa la qaatay warshada caanaha kuwaana marka inuu qaato rabaa haddii la rabo dhul dowladeed in dadka laga kiciyo oo dowladdu ay u baahato process loo maray leedahay hay-ad dhan bay leedahay oo federaalka ah oo u qaabilsan madaxweynuhu guddigii musuqa sababta u kala diray horey baan idinku sheegay hadda ma idiin caddaatay inaan idina ka hadlin buu rabaa wuxuu rabana uu gato dhulkan goormuu gatay dilaaleyda waxaa ka mid ah cabdikariin guuleed iyo liibaan shulo dhanka kalena isaga waxaa dilaal u ah ninka la yiraahdo cabdinaasir cali adoon iyo cali balcad dhulkan 10 milyan oo madaxweynahan idiin sheegay maalintii dhulka badda la qaatay oo MOU-ga la saxay January 1st 2024 bishii koowaad koodeedii markii uu loo sheegay warka khabarka caajilka ah madaxweynuhu lacag buu tirsanayaan idiin sheegay lacagtii dhulkan dabdamiska ahay qoraan idinku sheegay 4 bilood kama soo wareegin waa kaas saddex xabada la soo haysto dhulkii bangaariyada oo dad shacab ilahaayeen oo bangiga u shaqeyn jiray oo private property ah waa qaatay madaxweynuhu gaday dad baa loo qaybiyey asxaabtii iyo qaraabada iyo familiga soo ma jeed bangalo my bank qola la yiraahdaa gadatay oo qolay takfiirka ay saadiyoon hadda ka hor waan khaldamay markaan lahaa premier maaha waa my bank dhulkii ugu dambeeyay gaday baa leeyahay waa lagu kala baxay xeriyihii ciidamada warshadihii wasaaradihii wakaaladii buu xaraashaya xasan sheekh qaar baa waxay dhihi jireen dal xoreeye ninkaas waa dal xaraashe su-aal baan idin weydiinayahay dowladdu xagee ku shaqayn doontaa haddii dhulkeedii oo dhan la xaraashto ma dad guryahooday xoog kaga qaadi doontaa ilaan dowlad baa balaangaraysay oo qorshaysay 40 sano ka hor baa la qorsheeyey maxaa si aad barre goorta qorshaynayay oo uu ugu talagelayay dowladdaas inay hesho dhul ballaaran oo ay ku shaqayso si ay u noqoto dowlad la tartanta caalamka horu maray oo dowladaha waaweyn oo kale ah markuu u qorsheynayay
kuwaanu ma aqaan waxay ku jireen iyo waxay qabanayeen iyo waxay dowladnimada garan mayaan ka joogana laga kari maayo saas u soo indhaha u soo xanjaysanaya waa tartama maxaa ku tartamaysaa oo taqaanaa xagee geynaysaa dalka waxaa geynaysaa jeebkaaga iyo gurigaaga qof aan qab lahayn oon dareen lahayn oo haba yaraatee aan dowladnimo waxba ka garanayn ummadda marka loo dhiibo ceebtaasaa loo tagaa hadda berrito muxuu samayn doonaa hadduu weeraro oo dad laayana haddii waa nin dhiig galay oo dhibaata dhacayso waxaaba dhici karta inta laga adkaado in madaxtooyadaba laga qabsado hadduu iska daayana dhul dambe oo xaraashi karo cid ka kicin karaa ma jirto jayga kulli waa la xaraashtay waad ogtihiin airboortka agtiisa wixii ka dhacay yacni intii uu waagii hore geystay inteedii kale buu wataa nin madaale la yidhaahdo aan gabanna waa wataa oo saa u ordaya oo iska dhiga nin maaragtay wadaad ahoo dadka uleeya goortuu arko qof shiishad cabaya hantidii qaranku boobaya dhinac kalena wuxuu leeyahy wadaad baana wadaadnimo xaal qaada xasan sheekh wuxuu taagaya mikrofoonka masaajidka dhexdiisa khud buu tacliiqinayaa qaad baa degaya dhulkaasuu boobaya lacag buu tirsanayaa kulli xalaash buu ku jiraa isaga iyo asxaabtiisu ay dalkii boobayaan ganacsatada waxaan leeyahay war hantidan idinku ma lihidine berri waa laydinka qaadi doonaa markay dowlad fiican ay timaadee ha gadanina oo ninka ha saacidinina ha ka gadanina xaaraan maxaa u gadanaysaa waad ogtahay inuusan lahayn isagu broses loo maray leedahay waa in hay-addu ay khubaro ka madax bannaan siyaasadda ay caddeeyaan hay-addu inay ka maarantay wasaaraddu inay ka maarantay wakaaladdu inay ka maarantay kadib waa in wasaaradda maaliyaddu ay dhigtaa auction open ah oo dadkao dhan u tartamaan maaha group gaara in la siiyo kadib markaa la gado lacagtaas waa inay khasnada dowladda ku dhacdaa lacagtaasna waa inay dowladda ku baxdaa broses dheer bay u baahan tahay madaxweynuhu guddigii musuqa wuxuu baabi'inayay inuusan broseskaa marin kulli guddiyadii madax bannaanayo dhan waa kala diray soo ma arkaysa qadiyadaasna intaasaan ka odhanaya dadkaas qaylinayaana dadku xaq baa loogu leeyay dhulka in laga saaro dowladda laakiin waa markii dowladda u baahan tahay haddii kuwii kaleba bangalo iyo magaranaysaa meel kasta oo ay horey u dhaceen ay qaateen oo iyagu warshadda caanaha iyo ashkhaas ay siiyeen waa la ogyahay dee kuwaana intay ka saaraan nimankii lacagta laga soo qaaday oo ay cabdikariin guuleed iyo ka soo qaadeen dhowr iyo 10 milyan baa diyaar oo la wareegaya marka ma nin baa nin dhul looga qaadaya ma nin baa nin dhul loo dhacay ma xasan sheekh jeebkiisa loo dhacaya ummadda iyo ganacsato tuuga waa maya anigu marka anoo dareensan dowladnimada oo raba dhulka dowladdu inuu ahaado dhul dowladdu leedahay haddana ma ogoli dadka in lagu dulmiyo magaca dowladnimada nimankaa waa laga gardaran yahay bannaanka laga maro dadka kale oo dhulalka haystana dowlad daacada oo daacad ka ah oo aan tuug ahayn shalay markii loo dhiibay xasan sheekh dowladnimada buug dhan baa loo dhiibay madaxweyne hantidii qaranku waa sidaad iigu dhiibtay waagii hore hal boosa kama bixin berri markuu xilka wareejinay muxuu oran doonaa 16 boosaan gatano ya masaasu dhihi doonaa 16 basaan gatay intii kale waa daay muxuu dhihi doonaa ha yacni xishood ma leh oo dowladnimo ma leh oo meelay u socdaan waxay rabaan lama yaqaan siyaasaddii dibadda waa ku fashilmeen oo tii gudaha waa ku fashilmeen oo waa dad yaacayo qabaanqab ah oo sidoodaba lacag doona sideeda nin lacag doonayaa ma gayo kursi nin dhaqaale raadinayo ganacsada ahi kursi madaxtinimo ma gayo labadaa la iskuma helo mid baa la qaataa kelmaddaa intaasaan ka oranaya qodobkay ugu dambeeyay G7 baa waxay ka hadleen qadiyadda Soomaaliya waxay ka muujiyeen walwal khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia waxay sheegeen oo baraarujiyeen in ururada localka ah sida IGAD iyo madaxda localka ah ay kala shaqeeyaan Soomaaliya iyo Ethiopia ayna furaan channelkii wada hadalka MOU-gii wuxuu ka hor imaanayay say sheegeen sovereignty-ga iyo madax bannaanida wadamada xorta ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay arrintaasina waxay leeyihiin waxay ku xardhan tahay charterka UN-ta communication-ka la furo localka lala shaqeeyo waa qadiyadii uu watay ninka la yiraahdo Ruto madaxweynuhu isaga ka dalbaday sheekadiina waa taas halkaas ka soo cadaatay inay caalamkuna ay taageeri doonaan inuu ninka la yiraahdo William Ruto uu ka noqdo nabadoonka localka ah kelmadaasna intaasan ka oranayaa hada billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi